بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدن قدومية كحجينة قولها وكيلة حلبانة وأنا halkan idinku soo gudbinaynaa maanta oo taariikhdu tahay labadii bishii koobaad 2022 shaqadii iyo hawlihii u qabsoomay guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada baak oo ku aasaasan xiroosaadka golaha wakiilada xeer lambar 01/2021 qodobkiisa 6aad guddigu waxay shaqada la wareegtay taariikhdu markii ahayd 14 Sebtembar 2022 waxaana toos u bilowday shaqo maalmeedkeedii guddigan gaarka u ahaa ee uu siiyay xiroosaadka golaha wakiilada haddaba iyadoo ka duulaysa waajibaadka iyo mas'uuliyadaha ay golaha u hayso baak waxay toos u bilowday shaqadeedii sidan hoos ku faahfaahsan kulanadii shaqo ee ka qabsoomay xafiiska baak hawlihii shaqo ee guddigu qabatay kulankii guddoomiyihii hore ee guddiga baak 16 bishii 9aad 2022 guddigu waxay u yeedhay guddoomiyihii hore ee guddiga baak eegas xildhibaan Siciid oo ay ka wareysatay shaqadii guddiga sii haysay ee aan dhamaystirmin oo ka mid ahaa xisaab xidhkii 2020 iyo waxyaabihii kale ee jadwalka guddiga ku jiray ee muhiimka ahaa sidoo kale guddigu waxay ka dalbatay wixii macluumaad ah ee uu hayo ee la xiriira shaqada guddiga in uu guddiga la wadaago waanu la wadaagay kulankii madaxa xiriiryaha BFM-ka taariikhdu markii ahayd 22 bishii 9aad 2022 guddigu waxay xafiiskeeda ugu yeedhay isla markaana la kulantay madaxa xiriiryaha nidaamka maareynta maaliyadda ee BFM loo yaqaan xasan faarax nuxurka kulankaas wuxuu ahaa isbarasho iyo isxog waraysi la xiriira shaqada ka dhaxaysa BFM iyo guddiga baak taariikhdu markii ay ahayd 22 bishii 9aad 2022 guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee baak waxay xafiiska ugu yeedhay hanti dhowraha guud ee qaranka iyo ku-xigeenkiisa waxaanay ka wareysatay su'aalana ka weydiiyeen shaqada xafiiskiisu hayo shaqada uu qaranka u hayo xafiiskiisu miisaaniyadda xafiiskiisa caqabadaha xagga baadhista ka haysta xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka maadaama uu xafiiska hanti dhowrka iyo guddiga baak ay ka wada tirsan yihiin tiirka shanaad loo yaqaano Pillar 5 ee hanaanka dabagalka iyo xisaabtanka maaliyadda taariikhdu markii ay ahayd 27 bishii 9aad 2022 guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranku waxay kulan shaqo iyo kormeer ku tageen xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka si ay u soo eegaan isla markaana u soo indheeyaan goobta shaqo ee xafiiska una xog wareystaan shaqaalaha iyo madaxyada kala duwan ee xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdu markii ay ahayd 6 bishii 10aad 2022 hanti dhowrka guud ee kooxdiisu waxay kulan shaqo u imaadeen xafiiska guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka kulanka ujeedadiisu waxa uu ahaa isla markaana in la isla eego miisaaniyaddii xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranku uu soo gudbiyay guddiga baak ka hor inta aan loo gudbin wasaaradda maaliyadda maadaama guddigu awood sharci u leedahay diyaarinta gudbinta miisaaniyadda xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 56aad xeerka hanti dhowrka guud ee qaranka xeer lambar 76/2016 taariikhdu markii ay ahayd 12 bishii 10aad 2022 guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiiladu waxa uu kulan shaqo ku tagay wasaaradda horumarinta maaliyadda kulankaasi oo ujeedadiisu ahayd gudbinta miisaaniyadda xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ay qayb ka noqoto oo daraska ay qayb uga noqoto oo daraska miisaaniyadda guud ee qaranka 2022 taariikhdu markii ahayd 24 bishii 11aad 2022 wasaaradda horumarinta maaliyadda waxay imaadeen kulan shaqo guddiga baak kulankan oo daba socday
kulankan oo daba socday ahaana jawaab celinta ay ka soo bixiyeen kulankii miisaaniyadda xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ay hore ugu gudbisay guddigu miisaaniyaddaasi oo ku salaysan habraacyada iyo qoondooyinka hay-adaha dowladda ee kala duwan isla markaana xoogga lagu saarayo sidii shaqaalaha xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku u heli lahaayeen gunnooyin ku filan oo ay kaga maarmaan faragelinta la xidhiidha baadhistooda xilliga ay ku guda jiraan shaqada taariikhdu markay 24kii bishii 11aad wafdi ka socda baanka adduunka waxay booqasho ku yimaadeen xafiiska guddiga baank kulankaasi oo ujeedadiisu ahaa dardargelinta iyo joogtaynta shaqada ka dhaxaysa baanka adduunka iyo guddiga baanka adduunka iyo guddigu waxay hore u lahaayeen xidhiidh wada shaqayneed oo la xidhiidha in guddiga laga taageero kor u qaadista dardargelinta howlaha shaqo waxaana la isku afkartay in la sii wada shaqaynta 10kii bishii 11aad 2022 taariikhdu markii ay ahayd guddiga baank waxay kulan tababar ku saabsan laba hagayaal oo kala ahaa hagaha dabagalka iyo hagaha hantidhowrka ay ku qabteen hotel Mansour socdayna 2 maalmood oo ay kaga qayb galeen daneeyaasha hay'adaha ay qosayso ay ka mid ka ahaayeen wasaaradda horumarinta maaliyadda beeraha waxbarashada hantidhowrka guud ee qaranka xisaabiyaha guud iyo xafiiska BFM-ku taariikhdu markii ahayd 14kii bishii 10aad 2022 waxaa xafiiska guddiga booqasho ku yimi 7 mudane oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Gabiley nuxurka ujeedada kulankaas wuxuu ahaa sidan hoos ku xusan guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranku waxay kulan la yeesheen xubno ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Gabiley kulankaasi oo ka yimid dhankooda kuna salaysnaa muran dhanka miisaaniyadda iyo xisaab xidhka ah oo ay sheegeen in loo isticmaalay si ka duwan sidii loogu talagalay sida ay noo sheegeen markii ay gudagaleen fadhigii saddexaad ee golaha deegaanka xisaab xidhkii 2020 si ay u gudagalaan miisaaniyadda 2022 ka horna ay helaan xisaab xidhka 2021 sida ay noo sheegeen xubnaha golaha deegaankii markii ay heleen xisaab xidhkii waxay arkeen qaladaad fara badan oo ku jira xisaab xidhka sida uu maayirku u sheegayna uu leeyahay miisaaniyaddu waa udras miisaaniyadda dowladda hoose ee Gabiley waxay ka kooban tahay 17 madax iyo madaxigeen oo ah madaxyadii kharashaadka iyo howlsocodsiinta oo ahaa markay dhammaadeen la galay lacag ka baxsan miisaaniyadda oo ka hor imanaysa qodobka 94aad xarafkiisa ee xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer lambar 23 sida ku cad sida uu qeexayo golaha guddiga fulinta iyo guddiga joogtada midna ma isticmaali karo kharashaad miisaaniyadeed oo ka baxsan sabab in golaha loogu yeesho waxay warbixintooda ku sheegeen in gudoomiyaha golaha deegaanka ee Gabiley uu galay deyn miisaaniyadeed oo ka baxsan 17 madaxna ay casaan galeen lacagtooduna qoraal ay noogu soo gudbiyeen guddiguna way haysaa xogta guddida u soo baxday khilaafkii golaha deegaanka ee Gabiley markii aan la kulannay mudanayaasha ka mid ah golaha deegaanka Gabiley oo tiradoodu dhammayd 7 mudane waxaa guddiga u soo baxay sidan hoos ku faahfaahsan waxaanu aragnay in miisaaniyadda 2020 uu ku jira surplus sabab deyn loogu baahdaanay aanay jirin waxaana xusid mudan inay jirtay deyn dhan 2,250 milyan oo shilin Soomaaliland sida uu dhigayo xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer lambar 23 qodobkiisa 94 xarafkiisa deynta ku xusan xarafka d ee qodobkan gooluhu ma qaadan karo sanadka u dambeeya muddaxileedkiisa 2 hantidhowrka iyo mudanayaasha golaha deegaanka Gabiley waxay isku mid ugu sheegeen guddiga baank in agaasimo waaxeed lagu eedeynayay lacag dhan 1 bilyan oo musuq maasuqay isla markaana uu hantidhowrku dalbaday cidii la wadaagtay oo ah xoghayaha iyo maayirka la baadho
laakiin taasi siday u dhacdayba la sii daayay halkaana lagu joojiyay dacwadda lambar 3 guddigu waxay ogaatay in laga guuray miisaaniyaddii saxda ahayd iyada oo la jabiyay qodobka 91 farqadiisa qodobka 91 farqadiisa koowaad ee xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka xeer lambar 3 oo tilmaamaya dib u eegis miisaaniyadeed waxa la sameyn karaa 6 biloodka sanadka u dambeeya laga bilaabo 1 July haddii dakhli korodh yimaado 4 guddigu waxay aragtay inay jiraan madax ku xigeenno ay mashaariic ku jirtay oo la kala wareejiyay iyada oo la jabiyay qodobka 93 farqadiisa labaad ee xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka xeer lambar 3 oo tilmaamaya wax kala wareejin ah laguma sameyn karo madax ku xigeenada qoseeyo mashaariic madax ku xigeenada mashaariicda la xidhiidha horumarinta 5 guddigu waxay aragtay in qoraalka wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxay uu ka hor imanayo qodobka 105 farqadiisa labaad ee xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka xeer lambar 3 oo tilmaamaya waxa reeban in xukuumaddu soo saarto wareegto ama amar burinaya ama hor istaagaya fulinta iyo ku dhaqanka qodob ama qodobo kamid ah xeerkan kadib markuu dhaqan galo 6 mudanayaasha aqlabiyada golaha deegaanka Gabiley waxay noo sheegeen inay jirtay warqad hanti dhowrka uu qoray maxkamadda Gabiley oo uu leeyahay waxa laga daba keenaya waa markii agaasimaha la xidhay waxa laga daba keenaya dadkii kale ee eedaysnaa intaanu soo gabagabeynayno noo sii haya iyadoo la tixraacayo eedaymaha ayna la wadaageen oo eedaymo musuqmaasuq oo dhan 5 bilyan oo shilin Soomaaliland marka la yiri wax ka qabtana la yiri xukuumadda ayaa buuq iyo difaac bilaabaysa lambar 7 guddigu waxay u yeedhay duqa Gabiley 2 jeer oo kala dambeeyay kuna taariikhaysnaa 30 bishii 10aad 2012 labadii bishii 11aad 2012 si wax looga weydiiyo xogna looga helo muranka shaqo ee ka jira xafiiska dawladda hoose ee Gabiley balse gabi ahaanba duqu Gabiley uu ku fashilmay inuu hor yimaado xafiiska guddiga baak si uu iskaga difaaco eedeymaha loo jeedinayo ee xubno kamid ah golihiisa deegaanka ku jeedinayo si guddigu labada dhinacba u dhageysato warbixinteeda uguna salayso iyadoo ka duulaysa mabaadiida cadaaladda iyo dhexdhexaadnimada guddigu markii ay daristay doorka miisaaniyadda dawladaha hoose ee dalka waxa soo baxday in miisaaniyadda golayaasha deegaanka dalka diyaarinteeda ay gaar u leeyihiin golayaasha deegaanka ee dalka ka jira sida uu dhigayo wax ka bedelka iyo kaabilta xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka xeer lambar 3 qodobkiisa 9aad farqadiisa 4 oo tilmaamaysa gooluhu marka uu miisaaniyadiisa ansixiyo waxa uu gudbinayaa wasaaradda arrimaha gudaha si loogu gudbiyo wasaaradda horumarinta maaliyadda looguna daro miisaaniyadda qaranka waxa halkaas ku cad in la jabiyay qodobka 9aad wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka xeer lambar 3 oo sheegaya cidda iska leh diyaarinta miisaaniyadda degmooyinka darajada ee iyada oo wasaaradda arrimaha guduhu ansixisay wareegtadana ku soo saartay una gudbisay wasaaradda maaliyadda si ay uga mid noqoto oo daraska miisaaniyadda qaranka ee 2022 oo aan goolihii lahaa ee ku shaqaynayay aanu soo ansixin kana doodin qaybta labaad ee warbixinteeda kormeerka mashaariicda xisaab xidhkii 2020 guddiga ilaalinteeda bakalkaantay qaranka waxay u baxday safar shaqo ay ku soo martay gobolada dalka oo dhan ujeedkiisuna ahaa kormeer iyo qiimeyn mashaariicda dawladdu ka hirgelisay dalka isla markaana waxay guddigu soo samaysay indhayn oversight and observation waana sidan hoos ku xusan kormeerkii gobolka Sool guddigu waxay soo kormeer ku tagtay gobolka Sool iyadoo soo kormeertay 5 mashruuc oo kala ah dugsiga sare ee Muuse Yuusuf saldhigga booliska ee degmada Yagoori xarunta dabdamiska ee Laascaanood jaamacadda Nugaal guddigu markii kormeerka mashaariicdan waxa uu soo baxday guddigu waxay soo aragtay in la fuliyay dhismihii kordhinta dugsiga sare ee Muuse Yuusuf isla markaana ujeedadii laga lahaa la gaaray lambar 2 guddigu waxay soo aragtay in garoonka kubadda cagta
ee laascaanood dhismahaasi ma uu gaadhin ujeeddadii laga lahaa waxaana la dhisay dhismo tayadiisu aad u hooseyso isla markaana sababi kara khasaare nafeed lamana isticmaali kara qaybo ka mid ah sida qaybta stageka ciyaaraha ee ka daawadaan mas'uuliyiinta qaranku lambar 3 guddigu waxay soo aragtay saldhigga booliska ee degmada Yagoori sida loo dhisay aanay ahayn mid ku habboon in lagu xidho dadka sababta oo ah qolaalka dadka lagu xidhaya oo aad u yar cidhiidhi ah oo aan lahayn meel ku filan oo ay maxaabiistu hawada uga soo gasho isagoo taliyaha saldhigga booliskuna uu sheegay in aanay lahayn meel u qalanta in lagu xidho qof aadama ah dhismahaasi waxa uu ahaa dib u habayn rehabilitation sidaa daraaddeed dhismahaasi ma aha mid hadda la isticmaalo sababtu ah waa mid kala dhiman oo aan laga gaadhin ujeeddadii loogu talagalay waxyaabaha dhiman waa sidan soo socota ma laha harkii gaadiidka loogu talagalay oo heshiiska BOQ-ga ku jiray ma laha taangigii biyaha ma laha dabayl celiyihii jiingadda wax daaqada ma laha iyo shabag qolka loogu talagalay in lagu xidho maxaabiista albaabada si khaldan ayaa loo geliyey labada qol ee loogu talagalay in maxaabiista lagu xidho waxay ka kooban yihiin 2 mitir by 2 mitir xagga sarena waa 2 mitir guddigu waxay ogaatay in maxbuus kasta oo lagu xidho uu naqasku ku dhago dabaddana loo soo saaro haddana aanay suurtagal ahayn in cid lagu xidho lambar 4 guddigu waxay soo aragtay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood oo gudaheeda ay dhex degan yihiin laba guri oo dad shacab ah degan yihiin isla markaana jaamacadda qolays ku haya oo loo baahan yahay in dadka meesha laga raro isla markaana xaqoodii la siiyo kormeerkii mashaariicda Caynaba guddigu waxay soo kormeertay mashaariic laga fuliyay degmada Caynaba dhismaha xarunta wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka dhismaha cusbitaalka degmada Oog dhismaha garoonka kubadda cagta ee degmada Caynaba dhismaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo aanu soo kormeernay waxa uu ka kooban yahay 4 xafiis 2 suuli qol waardiye barandi waxaana ka howlgala shaqaale gaaraya 7 qof oo isugu jira isuduwaha gobolka 3 shaqaale oo xafiiska jooga 2 nadiifiso hal waardiye guddigu waxay soo aragtay in dhismahaasi laga gaaray ujeeddadii laga lahaa waxaana loo dhisay dhismo tayadiisu sareyso dhismaha cusbitaalka Oog waxa uu ka kooban yahay 1 waar 5 suuli xafiis cusub farmasi qolkii kaydka daawooyinka deyrkii oo cabirkiisu yahay 100 mitir guddigu waxay aragtay in dhismaha tayadiisu wanaagsan tahay marka laga reebo xaal u harsan shirkadii heshiiska la galay ilaa haddana lama furin wax adeegahana ma bixiyo garoonka kubadda cagta ee Caynaba guddigu waxay soo aragtay dhismaha garoonka Caynaba oo la dhisay balse ruufka ama saqafka la hoos fadhiisto uu sababi karo khasaare nafeed maadaama tayadiisu liidato kormeerka mashaariicda laga fuliyay gobolka Sanaag guddigu waxay soo kormeertay mashaariic laga fuliyay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo guriga martida ee Ceergaabo garoonka kubadda cagta ee Ceergaabo 3 xarunta xanaanada Ceergaabo 4 dhismaha xafiiska xeeraalinta gobolka 5 dhismaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee degmada Garaadag 6 dhismaha dugsiga hoose dhexe Garaadag 7 dhismaha buundooyinka wadada Ceergaabo 8 dhismaha wadada Ceergaabo guddigu intay ku guda jirtay kormeerkeeda mashaariicda laga fuliyay miisaaniyadda 2020 waxay soo kormeertay wadada Ceergaabo oo samaynta buundooyinka ay ugu jirtay 4 bilyan 402 milyan wadada Ceergaabo waxaan dhisnayn ilaa 30 kilomitir wadadu waxay leedahay 32 buundo kalfar waxa oo ay 2 shirkadood qandaraas ku qaateen dhammaantood dhismahooda kuwaas oo mid waliba dhisayso 16 buundo oo ay 29 kamidii dhamaadeen shirkadaha buundooyinka dhisay oo la kala yiraahdo Allied Construction iyo Alnafora Construction Company guddigu waxay soo aragtay wadada Ceergaabo
inay leedahay 78 meelood oo u baahan in loo sameeyo Irish Bridge oo qaybo ka mid ah dhamaystirka wadada Ceerigaabo qiyaas ahaan la oran karo waxa dhismaheedu sii soconaya ugu yaraan hal sano. 2 guddigu waxay soo aragtay shaqada garoonka laga qabtay garoonka kubadda cagta ee Ceerigaabo qandaraasluhu inay kala dhiman tahay isla markaana ujeedadii laga lahaa aan laga gaadhin shaqooyin badan oo ku jiray heshiiskaasina ay dhiman yihiin sida ku cad BOQ-ga waxa ka mid ah drainage systemkii oo aan wax shaqo ah laga qaban isla markaana lagu bixiyay kharashaad kala duwan sidoo kalena waxa dhiman stage-kii. guddigu waxay soo aragtay in dhismaha guriga martida ee Ceerigaabo uu yahay dhismo aad u ballaaran iyadoo qaybta wajiga labaad aan la marin guddiga qandaraasada qaranka isla markaana aan la ogeyn lacagta ku baxday dhismaha wajiga labaad. kormeerka mashaariicda gobolka Togdheer guddigu waxay soo kormeertay mashaariic laga hirgeliyay gobolka Togdheer oo ka mid ahaayeen dhismaha deyrka jaamacadda Burco, 2 dhismaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta iyo kalluumaysiga, 3 dib u dhiska xarunta dabdamiska Burco, 4 dhismaha wasaaradda howlaha guud ee Burco, 5 garoonka kubadda cagta Oodweyne, 6 dhismaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada Oodweyne. guddigu waxay soo aragtay in dhismaha wasaaradda howlaha guud ee degmada Burco ay ugu jirto lacag iyadoo aan la garanaynin sababta lacagta loo bixiyay maadaama dhismaha la dhisay xukuumaddii Axmed Siilaanyo 4 sano ugu dambeeyayna lacag kala duwan ay ugu jireen miisaaniyadda. guddigu waxay soo aragtay in garoonka degmada Oodweyne shirkad qandaraas lagu siiyay in ay dhisto sanadkii 2019 kadibna ay dhistay deyrkii garoonka muddo gaaban ka bacdina dabayli dumisay deyrka garoonka dhammaantii iyadoo haddana shirkadda Libaax Construction la yiraahdaa lagu siiyay qandaraas dhismaha garoonka hadda maraya wajigii koobaad. guddigu waxay soo ogaatay in riig laga qodayo Oodweyne oo lacagtiisu dhamayd $500,000 si toos ah qasnada madaxtooyada laga bixiyay gabi ahaanba aan waxba laga fulin habeen madowna uu guuray riigii sida ay guddiga u sheegeen maamulka gobolku. guddigu waxay soo aragtay xarunta dabdamiska Burco shaqada laga qabtay ay tahay shaqo aad u kooban iyadoo oo sanad miisaaniyadii kala duwaneeyay mar walba ay lacag ugu jirtay dhismahaasi oo dhismihii hore warshada galeyda ilaa iminka dhismahaasi waxa ka muuqda qabyo weyn. kormeerka mashaariicda gobolka Saaxil guddigu waxay soo kormeer ku tagtay gobolka Saaxil kormeerkaasi oo ahaa kormeer shaqo oo guddigu ku mareysay gobolada dalka iyadoo oo gobolka Saaxil laga fuliyay 3 mashruuc oo kala ah xarunta wasaaradda macdanta iyo tamarta dhismo la doonayay in laga dhiso biyo kulule dugsiga hoose dhexe ee degmada Mandheera. guddigu waxay soo aragtay in dhismaha wasaaradda macdanta iyo tamarta uu yahay dhismo tayadiisu wanaagsan tahay isla markaana ka kooban 3 dhisme oo kala duwan. guddigu waxay soo aragtay in dhismihii biyo kulule aan la dhisin halkii loogu talagalay isla markaana gudoomiyaha gobolka Saaxil uu guddiga u sheegay in dhismahaasi loo wareejiyay meel kale sabab nabadgelyo awgeed iyadoo oo aan guddiga u cadaynin halka loo wareejiyay dhismaha. guddigu waxay la kulantay barasaabka gobolka Saaxil oo xafiis wasaaradda maaliyaddu leedahay ku shaqaynaya gobolkuna aanu lahayn xafiis barasaab. kormeerka guddiga gobolka Awdal guddigu waxay soo kormeertay mashaariic laga fuliyay gobolka Awdal oo kala ahaa xayndaabka dhismaha madaarka Boorame oo aan wali fulin dhismaha xanaanada xoolaha Hayayaabo dhismaha deyrka dabdamiska ee magaalada Boorame. cusbitaalka Boorame oo guddigu soo aragtay in cusbitaalka magaalada Boorame uu yahay ciriiri xoog ah oo dadka qaba xanuunada kala duwan ay ku jiraan hal dhisme sida dadka la nool HIV/AIDS-ka xanuunada dhimirka TB-da iyo COVID-19. guddigu waxay soo aragtay in gudoomiyaha gobolka Awdal oo ah madaxweynaha gobolka Awdal aanu xafiis ku lahayn magaalada uu ku jiro guri kira lacagtiisana ay bixiso dawladda hoose ee degmada Boorame. guddigu waxay soo aragtay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorame aanu lahayn wax indaab ah isla markaana uu muran ku jiro jihooyinka dhulka waqooyi iyo koonfur una xaniban yahay in xayndaabka lagu wareejiyo madaarka.
boorame guddigu waxay soo aragtay in magaalada boorame xaafadda hayayaabo MCH loogu talagalay lagu qaatay 3 jeer lacago kala duwan ay ku bixisay dhismihiisa xukuumaddu isla markaana ay qaadatay shirkad la yiraahdo Amal Construction Company lacagaha oo dhigma hal mar lacag lagu bixiyay waxa kale oo xusid mudan ilaa imka ma shaqeeyo MCH-kaas guddigu waxay soo aragtay in isduuyaasha qaarkood aanay lahayn xafiis ay ku shaqeeyaan qaarna ay ku jiraan guryo kira ah halka qaarkoodna leeyihiin xafiisyo balse aanay lahayn miisaaniyadda horsocodsiinta Rannikos gobolka Gabiley guddigu waxay kormeertay mashaariic laga fuliyay gobolka Gabiley oo ku jira warbixintii xisaab xidhkii 22 kow dhismaha xabsiga Gabiley dhismaha xafiiska cashuuraha bariga dhismaha rugta kutubta Gabiley guriga martida Gabiley biyo ballaadhinta Gabiley dhismaha MCH-ka Arabsiyo dhismaha MCH-ka kala baydh xunshalay ayaa loo bedelay dhismaha xafiiska iyo deyrka customka kala baydh xarunta tarminta xoolaha ee Wajaale dhismaha bakhaarka customka xayndaabka xarunta tarminta xoolaha dhismaha xarunta dabdamiska ee Wajaale biyo ballaadhinta Wajaale guddigu waxay soo aragtay in kastamada dalka qaybta form interiga ay maamusho shirkad la yiraahdo Sahal Technology taasoo halkii interi ka qaada 70000 isla markaana leh qalab lagu miisaamo alaabta soo marta kastamka kala baydh uu kala mid tahay kastamada kale ee dalka shaqadaasi oo ah mid ay qaban karaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyadoo ay sharcigu yahay in shirkad marka laga iibsado adeeg ama tababar laga codsado inuu lahaado muddo ku dhamaado heshiiska lala galay guddigu waxay soo aragtay in mashruuca tarminta xoolaha Wajaale oo lacag badan lagu bixiyay wali aanu shaqaynin isla markaana dhismahaas uu yahay dhismo aad u weyn 4 sano dhisnaa oo aanu haddana qaranka looga faa'iideyn taasoo qaranka khasaare ku ah guddigu waxay soo aragtay in degmada Wajaale aanay wax horumarin ah ka helin qoondada kastamka kala baydh ee 10%ka kormeerkii guddiga ee mashaariicda Maroodijeex guddigu waxay soo martay mashaariic laga furiyay gobolka Maroodijeex dhismaha cusub ee cashuuraha bariga dhismaha xarunta wasaaradda waxbarashada dhismaha xafiiska ciyaaraha dhismaha hoolka shirarka xafiiska xiraalinta guud dhismaha xarunta hay'adda masiibooyinka dhismaha cusbitaalka bariga Hargeysa dhismaha cusbitaalka waqooyiga Hargeysa MCH-ka Malowle kordhinta dugsiga hoose dhexe Malowle guddigu waxay soo aragtay in MCH loogu talagalay daami loo bedelay Malowle sida ku cad xisaab xidhka oo hanti dhowraha guud ee qaranka u soo gudbiyay baak inay ku jirto 2 MCH oo kala ah daami iyo Malowle sida ku cad payment voucher-ka waraaqaha lacag bixinta sumadoodu tahay 3434 jiitin tan iyo 2295 jiitin 12 sida darteed guddigu iyada oo xiganaysa xogta ay ka heshay antidhowrka guud waxay baadi goob ugu jirtaa in MCH-kii Malowle maadaama la yiri MCH-kii daami waxa loo wareejiyay kaamka Malowle gabagabay gunaanad guddiga ilaalinta dabagalka hantida qaranka iyadoo mar walba gudanaysa waajibaadkeeda shaqo oo faraya dastuurka qodobkiisa 53 farqadiisa 7 xeeroosaadka golaha wakiilada xeer lambar 01 2021 qodobkiisa 6aad waxay si ku martay dhammaan gobolada dalka ay soo kormeertay si shaqadeedu ahayd guddigu xilligii ay ahayd in xisaab xidhka ay soo gudbiso golaha muu fadhiisan shirkadoona ma jirin sidoo kale golaha wakiiladu ma laha miisaaniyad lagu sameeyo dabagalka iyo kormeerka mashaariicda dawladda ay ka fuliso gobolada dalka taasi oo caqabad ku ah korjoogteynta iyo dabagalka hantida qaranka 20 isla markaana dhinac waliba ku ekaado doorka shaqo uu farayo ama waajibsiinayo xeerkan ama uu waajibinayo xeerkan 6 guddigu waxay soo jeedinaysaa in mashaariicda laga maalgeliyo madaxtooyada in la mariyo nidaamka qandaraasyada qaranka si loo helo xogta iyo raadraaca mashaariicda 7 guddigu waxay soo jeedinaysaa in dawladdu hirgeliso
dhismayaashii xafiisyada maamul ee gobolada saaxil iyo awdal oo aan lahayn dhismayaal wabillahi tawfiiq